السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دو أفن أكاديمي. رمضان مبارك. رمضان كريم. sida wada ognahay waxaan soo dhameynay course-kii ahaa Basic of Computer. Mawduucan oo markaa waa mawduucii ugu horeeyay ee madax banaan aan ahayn wax course ah. Haddii aadan soo arkin markaa course-ka Basic of Computer ayna tahay marka ugu horeeyay aad maqlaysid markaa codkayga iyo markaa magaca akaademiyada. Halkan kor ayaa waxaan kuu soo saarayaa course-kii hore ee Basic of Computer. Course-ka aad haddaad u xiiseynaysid inaad qaadatana markaa waa soo qaadan kartaa. muuqaalkanna waa la jaan qaadi kartaa ee soo dhawow. Mawduucayni maanta waxaan uga hadlaynaa 3 software muhiim ah. 3daas software oo qof walba u muhiimsan. Ma ahan kaliya qof qaas ah markaa sida aan aaminsanahay qof walba inay muhiim u tahay ayaa ila tahay 3daas software. Haddaan 3daas software aan kuu soo gudbiyo mid koowaad waa browser. Browserna cid walba ayaa muhiim u tahay sababtoo ah browser la'aantii markaa internetka waxba ma ahan lahayn. Marka browserka waxa ugu fiican 3 ayaa la sheegaa. 3da oo ah Microsoft Edge oo markaa laptop walba ku imaado. Sidoo kale waxaa jira wax lagu magacaabo Mozilla Firefox. Sidoo kale waxaa jira browser Chrome. Chrome-kana waa markaa browserka ugu fiican the best-ga ah. Mawduucayna maanta waxaan ku qaadanaynaa browserka Chrome sida loola soo degi lahaa. Sidoo kale waxaan ku qaadanaynaa WinRAR. WinRAR-kaasna wuxuu qabtaa shaqo kale. Shaqadaas oo ah inuu zip-ka furo ama RAR-ka iyo waxyaalaha uu kala furfuro. Sidoo kale folder aad ugu bedesho markaa RAR iyo zip. Asna waa arkaynaa waxyaalaha sida uu qabto mawduuc gooni ayaan ka sameynaynaa insha Allah mustaqbalka. Sidoo kale mawduucan waxaan ku qaadanaynaa wax lagu magacaabo VLC. VLC oo markaa media player. Asna sida loola soo dego iyo wuxuu yahay waan arkaynaa. Anagoo markaa mawduuc gooni ah aan ka sameynayno VLC sida loo adeegsado iyo toolskiisa biidhnillahi al-baari. Ku soo dhawow mawduucayni maanta. رمضان كريم. ugu horeyn waxa ugu muhiimsan oo ah inaan helno markaa Google Chrome ama browserkii waxyaalihii aan hadda rabnay aan kala soo degi lahayn sida markaa browserka u soo degsanaya. Tusaale laptopkayga ka soo qaado mid new ah ana markaa waxaan u dhaqmayaa sida laptopkayga inuu new yahay. Laptopkayga waa mid new ah waxaan rabaa inaan helo markaa browserka Chrome sida uu la soo degi karaa. Waxaa markaa laptopka walba lagu keenaa ama Windows walba ku imaado waxa lagu magacaabo Microsoft Edge. Haddii aad Mac isticmaalaysidna waxaan jeclaa inuu asna leeyahay browser. Mac iyo Windows wuxuu yahay insha Allah mustaqbalka waxaan ka sameynayaa asna muuqaal gooni ah. Haddaan guda gala marka mawduuca waxaan soo furayaa ugu horeyn Microsoft Edge. Waxaan jeclaa adna inuu halkan ku yaalo. Hadduu halkan ku yaalina waxaad sameyn kartaa inaad aadid halkan searching-ka kadibna aad ku qorto Microsoft Edge. Sida arkaysid markaa asiga ayaa si automatic u soo baxayo. So markaa open ayaad leedahay. Sida arkaysid dartaan waxaa inoo soo furmay Microsoft Edge. Sida caadada ahayd browser walba wuxuu leeyahay markaa qayb wax loogu searching gareeyo ama wax lagu raadiyo. Haddaan aadna markaa qaybta wax laga raadiyo ee searching-ka kadibna aan ku qorno wixii muhiimsanaa aan rabnay ee ahaa Google Chrome. Marka waxaa jira wax lagu magacaabo 32 bit iyo 64 bit. Sida arkaysid halkan waxaa ku qoran 32 bit. Sidoo kale halkaana waxaa ku qoran 64 bit. Waa maxay markaa 32 bit iyo 64 bit? 32 bit iyo 64 bit waa markaa systemka Windows-ka uu ku fadhiyo. Markaa waxaa jeclaan lahaa 32 isticmaalaysid inaad 64 aad adeegsatid. Sababtoo ah software-ada badankood hadeertaan waa 64 maadaama oo dunida zaid ay sii noqoto horumarkeeda. Waxaan aadaynaa markaa start button-ka kadib waxaan kasii aadaynaa halkan ay ku qoran tahay setting. Markaa setting-kiga aan aado sida tan ayuu igu soo furmayaa. Marka sida tan ii soo baxo halkan searching-ka ayaa waxaan ku qorayaa markaa about. Waxaan ku qorayaa halkan about. Marka about your PC ayaan kasii dooranayaa. Marka about your PC aan doorto sida arkaysid wuxuu ii soo saarayaa markaa waxyaalaha ku saabsanaa markaa PC-gayga ama computer-kayga oo idil. Sida arkaysid hadda markaa device name-kayga markaa Intel Core-kan adeegsanayo hadeertaan RAM-kan adeegsanayo markaa ID-gii waxyaalihii dhan ayuu ii soo saarayaa. Muhiimadan waxaas ma ahan waa markaa system type-ka
system type sida arkaysid halkan waxaa noogu qoran marka anaga 64 bit soo marka 64 bit ayaan hadda adeegsanayaa adina marka halkan haduu ku yahay 32 waxaad isticmaalaysaa softwareska marka 32 ah haduu 64 ku yahayna waaba sidii la rabay way la jaan qaadi kartaa marka aan ku soo laabto marka mawduucayni soo marka aan qorno Google Chrome free download for PC si automatic asaga ayaan doori doono marka in 64 rabno in kale laakiin iska hubi kaliya marka in laptopkaaga uu yahay 32 minuu yahay 64 marka Google Chrome searching gareey sida tan ayaa ii soo baxay waxaan ka sii dooranayaa marka qaybtan doorto kadib si toos ayuu ii geenayaa marka website-ka Google Chrome marka website-ka ii geeyo kadib sida arkaysid halkan waxaa ii soo baxay button yar oo buluug ah oo ku qoran tahay marka download Chrome waxaan ku dhufanayaa buttonkan soo marka buttonkan la ku dhufto kadib halkan wuxuu ii soo saarayaa sharaxaad marka sharaxaadaas aad akhrisid kadib waxaad taabanaysaa halkan muhiim ma inaad akhrisid laakiin marka download Chrome manual ayaad leedahay soo marka download Chrome manual aad dhahdid si automatic isiga ayaa isku soo dejinaya marka sida arkaysid aniga oo ii dhameeyay xawaara internetkaaga ay ku xiran tahay adiga halkan ay ku soo saaraya marka calaamadii oo buuxsamayso soo marka inay ku dhamaato in kale halkan aad ka arkaysaa soo markuu ku dhameeyo sida tan open file aad leedahay open file marka dhaho wuxuu bilaabayaa inuu soo download gareeyo ama inuu soo degsamo socodkii dheeraa uu waday oo inoo dhameeyay soo marka waxaan fiirinayaa inuu soo degay in kale waxaan iska xiraynaa qaybtan noo furan waxaa laga yaabaa adiga desktopka inuu ku imaado haduu desktopka ku imaan marka qaybtan wax laga raadiyo ayaad waxaan ku qoraysaa Chrome marka Chrome aad qortid kadib sida tan ayaa ku soo baxayo kadib waxaad leedahay open soo marka open deedid kadib sida tan ayaa ku soo saaraya adiga inuu waxyaalo kale xaysiimo ku soo saaraya laga yaabaa soo xaysiimadaas waxaan filayaa inaad iska dibiri kartid soo marka xaysiinadaas aad iska dibirtid kadib sida tan ayuu ku soo saaraya kadib waxaad ku xiraysaa Gmail-kaaga waa kaliya sidaad u adeegsan jirtay smartphone-kaaga soo marka aad Gmail-kaaga ku soo xirtid kadib xitaa adoo Gmail-kaaga ku soo xiran waa adeegsan kartaa qaybtan wax laga raadiyo ayaan waxaan ku qoraynaa marka software-ka xigay aan u baahnayn ee ahaa WinRAR sidoo kale WinRAR kaasin wuxuu leeyahay marka 32 iyo 64 32 iyo 64 waxay tahay qaybta hore videoga aan ugu soo hadlay WinRAR 64 free download ayaa leenahay marka 64 bit ayaan u baahanahay marka sida tan ii soo baxo qaybtan ayaan click ku siinayaa WinRAR wuxuu eg yahay wajiga tan aad arkaysid soo marka sida tan ii soo baxo waxaan taabanayaa halkan ay ku qoran tahay WinRAR 6.1 marka sidoo kale waxaad bedeshan kartaa language-ka hadaad Ingiriiska ku fiican tahay waa ka luqadda Ingiriiska asiga si automatic ugu doorayo sidoo kale wuxuu leeyahay language-kan arkaysid marka wuxuu leeyahay language-kan arkaysid midka aad jeceshahay ka dooran kartaa adiga soo marka language-ka aad dooratid kadib waxaad click ku siinaysaa halkan si automatic sida arkaysid inuu soo dego ayuu bilaabayaa waa wax aad iskaga fudud ayuu soo degayaa marka aniga waan iska kansalayaa marabi inuu mar kale ii soo dego markuu ku soo dego kadib waxaad aadaysaa file explorer-ka waxaad ka sii dooranaysaa marka halkan ay ku qoran tahay download soo marka soo dooratid sida arkaysid isla markaa waxa ku soo baxaya WinRAR-ka aan soo dejinay kadib WinRAR-ka waxaan dushiisa ku leeyahay double click markaan double click WinRAR-ka aan dhaho sida tan ayuu soo saaraya ama wajigan ayuu soo saaraya waxaan ka sii dooranaya halkan ay ku qoran tahay install soo marka wuxuu bilaabayaa inuu installation-ka ii sameeyo kadib wuxuu leeyahay shaqadii rabtaa inuu ku qabto dan marka qof walba dooqiis isaga og adiga marka shaqooyinka aad rabtid dooro dan waxaad leedahay okay kadibna waxaad sii leedahay then sida tan waxa inoo soo degsan hadeertan WinRAR-kii waan adeegsan karnaa soo marka WinRAR-ka iyo qaabka kale oo xaalad u qabto waxaan ka sameynaynaa video gooni ah biidhnillaahi albaari aan soo laabto marka hadana Google Chrome-keeni aan aadno software-kii saddexaad ee lagu magacaabay VLC soo marka asna video gooni aan ka sameyn doona aan uga hadli doono mustaqbalka insha Allah hadeertan waxaan arkaynaa marka VLC sida loo soo dejiyo iyo sida marka installation loo sameeyo laba mid kala saar markaad joogtid browser-ka internet-ka check soo dejinaysid waxaa lagu magacaabaa download but markaad file explorer-kaaga aad joogtid installation ayaa ku sameynaysaa sheyga soo marka hadda qaybta wax laga raadiyo waxaan ku qorayaa VLC media player markaan qoro kadib si toos ayuu ii geenayaa halkan marka waxaan ku sii dhufanayaa qaybtan then sida tan ayuu soo saarayaa soo marka halkan waxaan ku dhufanayaa download VLC soo hadeertan arkaysaa marka uu dhameeyay VLC file-ka inuu soo dejiyo marka anaga wadadii hadday dheereed aan marin oo file explorer-ka aan aadin waxaan furayaa flash yar kadib waxaan leeyahay open
then marka open soo dhaho kadib sida tan ay ii soo baxayo kadib marka halkan waxaan dooranayaa luuqadda aan rabo inuu VLC fileka igu shaqeeyo so ingiriis ayaan ku dhaafanaya hadda then waxaad leedahay okay kadib wejigan tan ayuu kuu soo saarayaa waxaad kasii dooranaysaa marka next then waxaad sii leedahay marka next waxaad sugaysaa marka intuu ka dhameynayo installationkan socdo then marka VLC filekaaga uu ku shaqeynaya so markuu ku dhameeyo kadib wuxuu ku soo saarayaa wejiga tan kadib waxaad iska leedahay finish markaad finish dheedid kadib sida caadada ahayd qaybtan searchingada aad ku qortid marka VLC si automatic ayuu kugu soo baxayaa sida arkis VLC-gii waa kan wuu soo furmay asna sida loo adeegsado marka waxaan ka sameyn doonaa mustaqbalka muuqaal marka khaas ah ama asiga u gooni ah muuqaalkeeni maantana halkan ayuu ku eg yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan filayaa in marka cashirkan wax aad u badan inaad ka fahantay waxaynu balanaa marka muuqaalkan muuqaalka xiga subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa ant astaghfiruka وأتوب إليك